الله وبالله الله daahir baana la caayi karin daahir dahab wala waxaan la caayi karin filsan dheeman qof laga caayi kara meeshan ma jirto daahir hooda badano hibada basiyo xataa yaliidawa السلام عليكم داوديال كسو دوادا يوتيوب channel kayga Mustafa Al-Adala fadlan hadii aad ku cusubtaa YouTube channel kayga subscribe saar hadii aad horey noola joogtana waxaan ka codsanayaa in muuqaalkan la gareyso si uu saaxiibo badan u gaaro sida alla wada socoteenba waxa waayaan baraha bulshada isku haystay oo dagaal aad iyo aad u xooggan uu ka dhaxeeyay Naciima Joker iyo Daahir Cali Sow waxaan halkan idinku faaqidi doonaa maanta Naciima Joker oo sheegtay inaysan mar dambe soo caayi doonin Daahir Cali Sow sababtu maxay tahay ayadoo laga filayay in dagaalkooda uu aad u sii qaraara doono maadaama maalmahan ay aad isugu dhagnaayeen ay Naciima Joker video lama filaan ah soo duubtay waxayna sheegtay inaysan mar dambe Daahir Cali Sow soo caayi doonin waxayna sheegtay sababta ku qasabtay inay dagaalkiisa joojiso maadaama uu dagaalkoodu soo socday muddo ku dhow 2 sano haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa sababaha ku qasbay iyo qofka ka dambeeya inay joojiso dagaalka imagine that Soomaaliya serious in la hadla qofka aan dhibaatadan oo dhan u maray oo intaano dhiba ninkan ii marsiiyay oo intaano cay iigu dhacday intaano xumaan iigu dhacday intaano qof ay isugu kay soo raacday dartiis thank you hatta one day intuu teleefankayga soo wacay thank you ee damacaan Mariin 7 months hatta wuxuu ii qoori waayay TikTok-gaysa markaan guursaday inuu hambaliyo iga dhaho buu ii qoori waayay ninka intaasoo dhib u maray waa aamusaya waa ogahay may waa aamusaya halaasa uga baxay iyadana sheekadaas laakiin waxa idin sheegayaa Soomaaliya saaxiibtay baa ku cayda leedahay ninka waxa dhib u galay hatta thank you iska dhaafay hatta hambaliyo ii qoori waayay intaan guursaday hambaliyo ee damacaan waa guursatay hambaliyo ii qoori waayay niman reaction ka bixiyo ceebihiisa iyo caydiisa ku raaxaysto YouTube ka fadhiya buu heeso u soo qaaday anigana ee damacaan hambaliyo ii qoori waayay wax kala ka sheekeynaysa adiga marka haddaba Naciima Joker ayaa amaan ugu qabaysay Daahir Cali Sow iyadoo soo qaadatay hees horey loogu amaanay Daahir Cali Sow sababtu maxay tahay wiilka kaleetana lama caayayo yes cid caayi karta ma jirto ninka daahir baana la caayi karin daahir dahab wala waxaan la caayi karin filsan dheeman qof laga caayi kara meeshan ma jirto daahir hooda badano hibada basiyo xataa yaliidawa Naciima Joker ayaa sheegtay in qofka kaliya ay u gashay dagaalka Daahir Cali Sow ama ku kalifay in Daahir Cali Sow la dagaasho uu yahay Sharma Boy waxayna sheegtay inaysan Sharma Boy ka haynin wax yacni maaragtay abaal gud ah ama inuusan xataa hal mar ayada garabkeeda soo istaagin tan iyo inta uu socday dagaalka u dhaxeeya ayada iyo Daahir Cali Sow Naciima Joker waxay sheegtay xitaa inuusan hambali u soo dirin markii ay guursatay Ilka Case oo uu dagaal ba'an ka dhaxeeyay Daahir Cali Sow Naciima Joker ayaa sidoo kale sheegtay inay Daahir Cali Sow dartiis dad badan ula dagaashay saas darteedna ay hadda u soo gabagabeysay dagaalkooda Naciima Joker ayaa sheegtay inay tahay beesha kaliya oo ay garab ka heshay beesha dhulbaante saas darteedna dad beesha dhulbaante ka soo jeeday ay caayeen ayaduna aysan u jawaabin ayadoo fiirinaysa abaal ay hore ugu galeen seriously dagaalkan aniga aan galay ee aadka u adkaa oo 2 sano iyo 1 sano aan ku socday bini aadan aan ku kala bartay believe or not aan ku dhahay qabiil kasto noqdo bini aadan aan ku kala bartay dad badan waxa aragteen isoo caaya aniga Naciima ahaan oo aan ugu jawaabin sababta ugu jawaabi waayay waxay tahay dadkaas waxa dhici karta in abaal aad adiga ogeyn aan u hayo waxa aragtay beesha dhulbaanta dad badan oo ka dhasho aniga caaya waligeey ma aragtay anoo beesha dhulbaanta u jawaabiyo sababta u jawaabi waay mataqaanaa dagaalkii xoog badnaa aan soo galay beesha dhulbaanta 100% ay soo qayb qaateen daas waan dhulbaanta ugu jawaabi waay si kasta ay soo caayaan marka 2 qof iyo 3 qof oo TikTok joogta I don't give a shit kaas aniga abaal bay ugu leeyihiin beesha dhulbaanta
I wish inaan ahaan lahaana. I wish inaan ka dhalan lahaa. Waa aamusi karaa aniga dhibaato iguma fadhido. I don't want inaan emotion maalkayga raadhaa by the way. Heesaan ku raaxaysanayna. Maya waa joojinaya. daawade haddii aad dhamaystay muuqaalkan waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saarto YouTube channelkayga si uu saaxiibo badan u gaaro like saar muuqaalkan oo la wadaaga asxaabtaada mahadsanidin daawadayaal